calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada warkeena maanta. Fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe saar, like-na saar, commentigana noogu reeb wixii faalo ah iyo talo bixin si ay noogu noqoto dhiirigelin. Mahadsanid. Agaasimihii hore madaxtooyada dowladda federaalka Soomaaliya ee nabad iyo nolol Cabdirashiid Xaashi Duqa ayaa ku dhawaaqay inay soo gaartay akoonka guddiga mahadsanid madaxweyne ee loogu dhisayo guriga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lacag gaaraysa $2 milyan. Master Duqa ayaa uga mahad celiyay dadka shacabka Soomaaliyeed sida soo gaarsiinta lacagtani. Master Duqa ayaa xusay inay listi gareyn doonaan dadkii u soo diray lacagtaasi ina ula hadli doonaan si khaas ah. Wararka aan helayno ayaa sheegaya in guddiga aruurinta lacagta mahadsanid madaxweyne ay go'aansadeen kadib markii ay la tashteen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in lacagta aruurtay oo hadda gaaraysa $2 milyan iyo lacago kale oo ku soo maqan guddiga in loogu deeqo dadka abaaruhu ay saameeyeen. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qaatay go'aankaasi adag. Waan arkaa wadanku xaaladdu ku jiro, waan arkaa dadka Soomaaliyeed ee u dhimanaya abaarta, sidaa darteed lacagtii soo gaartay oo gaaraysa $2 milyan waxaan go'aansaday inaan ugu deeqno ana ka qayb qaadano gurmadka abaaraha. Sidaas waxaa u sheegay guddigii aruurinaysa lacagta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Farmaajo ayaa lagu xasuustaa inuu iska celiyay dhalashadii dowladda Mareykanka kadib markuu hayay xilka madaxweynaha Soomaaliya muddo gaaraysa 6 bilood. Go'aanadan masiiriga ayaa aan ahayn wax ku cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Lacagtan $2 milyan ayaa waxay aad uga qayb qaadanaysaa in dib loogu celiyo shacabka ay saameeyeen abaaruhu wadanka oo ku sugan xaalad aad u halis ah. Dhagaystayaal, waa naga intaas xogihii degdega aad nooga barateen. Fadlan kanaalkeena subscribe saar si aad ula socoto xogta xigta. Mahadsanidin.